gudoomiyaha ismaamulka Gaarisa Mudane Cali Bunow Qorane ayaa saaka hiirtii waa berigar qaaday wafdi ballaaran ay ka mid yihiin ku-xigeenkiisa Mudane Cabdi Dhaqane Maxamed golaha wasiirada madax xafiiseed iyo xildhibaanka laga soo doortay degmada Balambala iyo qaar ka mid ah wakiilada deegaanka Gaarisa. kolonyada wadi wafdigani ayaa u jahaysatay tuulooyinka dhaca galbeedka magaalada Gaarisa iyadoo ka lahaadii horeba gaaray tuulada Dhedheere oo ah halka uu socdaalkii daraadi ku joojiyay Mudane Cali Qorane. ujeedka socdaalka Gabane Cali Qorane oo ah kuurgalida baahiyaha bulshada iyo diiwaangelinta tabashooyinka dadka deegaanka ayaa ah mid ka duwan socdaaladii hore ee looga bartay madaxda gobolka. bulshada tuulooyinku socdaalka ku maray Gabane Cali Qorane ayaa caleemo qoyan ku soo dhaweynayay wafdiga iyagoo sidoo kale nooga mahadceliyay mashaariicda horumarineed ee uu Gabane Cali Qorane ka qabtay deegaanadooda. dowladda maanta ama martida sharafta leh ee noo imaatay gafanaha walaalkaana Cali Bunow uu hogaaminayo yaa aad maaragtay yaan hadda ugu celiya. waxaan umalayaa waqti badan baan soo dhaafnay oo aan isla soo jilbadaynay maanta ilaahay ka dhigay haddana inaan kulanno oo ku kala wada qaadano meesha maalinta hore aan ka duulnay ee maaragtay aan أنا ما أعرف الدولة دي أسول الوجود دولة يعني أنا ما أنت يعني قوة أنا بالله فرينا كوبا الحمد لله أنت أول مثلا عن هذا العليا سيد الدولة ده ما لك هذا اللي سماشة عبديه من الدولة حقوق بدن ودسية أنت عن كبر قبنا دولة عدالة وحقوق بدن أي هاي أما أنت أنا يوقفنا عن يوتس الحمد لله تعالى قفرها من هاد أبو عليا سلاس يقولوا سكسي درن إنه شيء وضع عدالة أوليسه وقت كاستو كل ما الوقت يجي يعرف أنا من هاد أبو عليا كقبل إنه نخرج شيء يا قبل يا ليش هيك إلهي نقول وكونوا مع الصادقين وكونوا شيء أنا هذا مركا قفنا وحكاوي ورقة إنه من رجالي أتاه ماشي ما تنع عدالة والأمان ما لك واحد الوشة وحب الله يقبل أتبين حتري مركن نكع بمرحوم لو أمانه وأنا إلهي الأكتيسيا اللي رجع لي هاي مركا ولا لك أنا محبا عليا سيدا عن كبر قانا الدولة حقوق بدن حلو أي هاي أو نلا أركو كتح موضوع إنه لساك كبر قبل marka waxaan leeyahay waa soo dhawaanaysiin gacmo furan baad ku soo dhawaanaysaa insha Allah waxaan kaloo ilaahay bilow aan bari oona ka rijayna inuu ilaahay marka la kuu soo celiyo dowladana ilaahay waa si aan weli la soo marin dowladnimada aan u dhimanayna inay dhalatay waad garan aad baan ugu faraxsan arrinta marka waxyaalaha badan buu noo qabtay wuxuu noo qabtay wax aad way aad badan yihiin waxaa kamid ah oo isbedel uu noo keenay dalay waxaa laga dhisay 45 guri wax lagu faana waa aad buu mahadsan waan ku faraxsanahay biyaan haysanaa oo aad nadiif anaga maanta aad baan u faraxsanahay aniga waxaan yahay chairmanka water use association duqa xogaa ma yarfaansana wax biyahan anaga 20 sano iyo dhowr been ciidan magaalada iyo amnad markuu gabana uu soo galay waxay tiray dalay inaan biyo nisu naarna waqtiga campaign-ki gabana waxa ku inta maray waxaana dalay waa oomanta wuxuu dhaw waxaad yeelaysin meel kale aadina dalay aada biyo noola suray biyo waa sola waa on iyo off hadda waxaan waa biyo intaan ku shubnay intaan ka dhigay biyo waa ka dheer dhulka ku shubnay waxaa kaloo oo raba inaan ku daro waxaa jirtay Kenya Red Cross yaa noo omaadeen waxaa la socda nin former MCO oo saaxiibaan Idris Abdi Bilal Musadan uu noo imaaday wuxuu dhahay waxaan rabnaa guriga daad ka qaadan door baan la galay wax alla wixii guriga dalay ku jiraan soo qorna xaashida uu noo qabray waxba kama jiro xoogaa haddaan joognaba telefoonka fiirbal 21,200 yaa soo gashay bismillah ruuxay lacagtan Kenya Red Cross ما شاء الله ولا إدريس رمبو شاقه
gurihii waa noola bagay waa complete markii hore ege martinomaad iskuulka aan geen jirnay iskuulkii uu furay macallimiin baa intaada marti laga sayn gurihii aad dhista iyo hal marti aad seexday his excellency waad ku baxsantahay nin wuxuu kala in la sheegaa la raba lama noqdo jisaar annaga markuu governor cali bunow qorane Garissa account uu governor ka noqde reedalay haddaan isbedel weyn ma aragnay maruma masamawa marka iyada rag badan baa af badan baa iga dambeeya xagga biyaha waxaa kale u mahadcelinayaa wasiirka biyaha ciise oyow aw wiilka asagana wuu mahadsan yahay arrinta biyaha waxaa umalaya Garissa account aad buu wax uga qabtay ciise waa mahadsan tahay welcome waxaan rabaa inaan ku hormaro biyihii gavanii horey u hagaajiyey way halaabeen waa tii webigu u gooyey waad noo soo celiseen webi biyihii waad hagaajiseen weliba ceel casri la duray oo webigana ka fog oona biyo macaan ceelkada waa la isticmaalaya maasha allah hadda waa la cabaya waa biyihii hadda aad furaysay waxaan rabaa inaan kaaga mahad celino biyahaas maxaa yeele bulshadaas meel aan biyo lahayn kuma noolaan karto marka aad u mahadsantahay biyaha aad noo qabatin waxaan idiin sheegi waxaan caddaynaynaa gavana wixii u qabtay waa wax cad bulshooyinkan maanta daba socday iyo kuwa Gaaris jooga dad badan la shaqaaleeyay midda kale waxaa weeyo gafanaha wuxuu qabtay waa wax muuqdo nin wuxuu qabtay hadduu muuqdo waxaan malay wax aad loogu sii rakan male excellency gafana meelaan u soconno ma laha waqtigii baa nagu dheeraaday waxaa ku soo hartay sida aniga ogahay 8 sano insha allah 8 sano nabadgelyo ku joog malakmood allah ka haya sadaqadii iyo salaatu shukri umbadi sifaad u noolaatay leen sadaqada faraha badan geerida ka dib kaaga dhigtay waftigani ayaa maray tuulooyinka dhadheeray dalley magaadow tuulo xaaji buula raxma madax libaax waxaana hargal loogu sameeyey saaqa oo ah xudunta tuulooyinka socdaalka uu ku mareeyay gabana cali qorane waftiga ayaa ka boqolay saaqa waxa uuna sii maray qaboobey haadley hirbaaye iyadoo gabaldhiciina socdaalka lagu soo gunaanaday tuulada kaasha inta uu socdaalka ku jiray mudane qorane waxa uu xariga ka jiray mashaariic dhowr ah kuwaasi oo u badnaa biyogelin lagu sameeyey tuulooyinka oo aan horaan u lahayn wax biyogelin ah iyo weliba xarumo caafimaad oo loogu talagalay in kor loogu soo qaado fayadhowrka bulshada gobolka si kastaba ahaatee mudane cali qorane ayaa u tafaaxaytay kajiba keenidda iyo daboolidda baahiyada bulshada ee gobolka isaga oo sii wadi doona safarada lagu kuurgalayo xaaladda bulshada deegaanka gaar maamulkaan doorane ma jaraayo kiina maamule namideeya noqo aad baad u mahadsantihiin muddo dheer baa idinka maqnayn maanta waxaan idin imaanay inaan idinku imaanay idiin sheegno wixii la doonaya in la helay shaqana inta ayada aan ku jirnay maantana aydan soo booqannay intii hadda aan dowladda ku jirnay dad un baan soo diraynay oo meel walba baahideeda soo ogaada aan dhahaynay maanta waxaan u imaannay inaan idiin barsayna ma ahayn inaan wax kale idiin sheegna ma ahayn inaan ogaanno wixii dad noo soo sheegay waxbana waan ka qabannay waxna wax waan qaban doonaa laakiin dadweynaha ayaga wixii ay u baahan yihiin oo ayaga afkooda ku sheegtaan yaa fiicnaan lahayd 3 sano ee soo socotay in lagu talagalo ininkan in dantiinna eed waa sheegateen annagana waxba kama qabno annaga wixii aan qabanay waan qabanay waxaan gabnay waan gabnay ma dhihi karno wax walba oo baahi yaan ka soo bixi karnaa laakiin intaad sheegteen 3 sano waa laga qaban karaa ilaa midda ugu horo dowladdii aad dhisteen way dhismatay ininkaa iskale ku danaysta dhibaatadiinna u sheegta ku qaylya canaanta ilaa marka ugu damba garab u ahaada waxyaalihii aad sheegteen biyaha saytow waa la dhisay shaqaalaha aad baan ugu dhibi qabnaa dowlad buuxdaan annaka yaan la wareegnay wiilasha dadka shaqaalahana dad shaqo ku leh baa jira oo ayagana dhib badan oo caririga jira arkayaan horumarkan middan isbitaalka waan isku dayeynaa insha allah inaan wax ka qabanno maanta waxaan u soconnay uun meel walba baahideeda inaan ogaanno markaan noqonno
inaan idinku soo noqonno oo meel walbo wixii ay sheegtay bal aan wax ooga qabanno sanadkan aan ooga qabanno haddii sanadkan ay suurtagelin sanadka kalo haddii markaa suurtagelin midda kalo laakiin marka ugu dambo inaan meeshan isku imaano mar la dhaho wixii horaan aan sheegnay wuu daba dhammaaday laakiin dhibaato ma daba dhammaanayso wax kaloo baa soo bixi doonaa baahida way unjiri doontaa haddana kuwa kale aan ka tashanno marka laakiin aad baan ugu faraxsanahay inay guryo la dhisay inay fiis la bixiyey in biyaha la geliyey waddada waan hagaajinaynaa haddii ilaahi yidhaahdo insha allah marka walaal waad mahadsantihiin